السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan saaxiibayaal soo dhawaada channelkeena Farxaan Academy maanta waxaan sharxi doonaa muuqaalkan oo ku saabsan sida ay luqadda Ingiriisku muhiimka u tahay Language is so important. oo dabcan uu ka hadlayo ninka loo yaqaano Jack Ma oo ah managerka Alibaba haddaba wuxuu ka hadlayaa muuqaalkan muhiimadda luqadda Ingiriiska wuxuu ku bilaabayaa Language is so important. It helped me a lot. Because of artificial intelligence, in the future, people say, I don't need to learn English or Russian or Japanese. A chip here can translate it quickly. No, it's not about language. It's about the culture. When you learn the other language, you start to understand the other culture. You start to appreciate, respect the other culture. When you appreciate, respect the other culture, you will be respected and appreciated by the others. Then you can work out together. language is so important and luqaddu aad bay muhiim u tahay language is so important luqaddu aad bay muhiim u tahay it helps me a lot aad bay ii caawisay because of artificial intelligence in the future maxaa yeelay caqliga macmalka ah ee mustaqbalka ayay ka caawin doontaa you will hear people say waxaad maqli doontaa dad leh I don't need to learn English uma baahni inaan luqadda Ingiriiska barto or ama Russian luqadda Russianka or Japanese ama Japanese-ka or ama something ama wax kale a chip or AI can translate it quickly waxaa si fiican iigu turjumi doonaa ama aan markiiba ii turjumaya AI-ga ama chipka no taasi maaha it's not just about language maaha keliya luqad it's about the culture waxa weeyaan culture waxa weeyaan dhaqan ama waxaad luqadda ka baranaysaa dhaqanka marka dadka ku hadla when you learning another language markaad baratid luqad kale you start waxaad bilaabaysaa to understand inaad fahantid the other culture dhaqan kale when you appreciate or respect the other culture marka aad ka heshid ee aad respect ama xushmad siisid the other culture dhaqan kale you will be respected waa lagu ixtiraamayaa and appreciated by others kuwa kaa soo horjeeda ayaa ku ixtiraami doona then dabeetana you can work together si wada jira ayaad u shaqayn doontaan